بسم الله الحمد لله وصلى اللهم على سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله كلمتنا وكلمتي لبعض قايبتي هوري إن شاء الله وحن كهذا الله إنه إسلاء إنه فرحد وقفكم ولا فرحد له وهليا waxay ku xidhantahay lacagta maalka adduunka insha Allah qofkii rabana cajalada qaybteeda hore ha eego tan labaad soo maaha waxaan kaga hadlaynaa hadaba maxaa qofka nolol farxad la siiya waxaan idin la wadaagi doonaa maaha waxaan iska waxaan la wadaagi doonaa research la sameeyay waxaan isku day doonaa qayb kasto ka mid ah researchada inaan ku adkeeyo xagga diinta islaamka hadii la yiraahdo waxa jirta qolo la yiraahdo Gunner Project baa la yiraahdo Gunner Project waxay baaraan happiness-ka farxadda iyo waxaas ay baaraan Gunner Project baa la yiraahdaa 3,000 qof bay muddo daba socdeen 3,000 qof 3,000 qof ay daba socdeen muddo dheer inay baaraan research ku sameeyaan waqti dheer kadib waxay soo haleen ilaa 4 nuqdo inay farxadda ku xidhantay dadka badankooda afartaasna isla eegina deedna insha Allah qaybta kalena waxaan eegi doonaa diinta islaamka iyo sida uu aragto mawduucan deedna way noo dhamaatay insha Allah afar arrimood bay yiraahdeen afarta arrimood bal qayb ila eega maanta waxaan isku day doonaa qayb kasta baan sidii sheegan ku xoojiyo maxay daliilo iyo nusuus ay diinta islaamku laftigeedu tiri waxay yiraahdeen afar arrimood bay iyagu la soo baxeen arrinta koowaad waxay yiraahdeen dadka faraxsan laga arkay waa caafimaadkooda waa dad caafimaadka marka waxay sheegeen dadka caafimaadka qaba badankoodu noloshoodu way ka farxad badan tahay dadkaan caafimaadka qabin ma la fahantaa marka caafimaadku waa wax weyn waa nicmo keentay inuu qofku noloshiisa uu ku faraxsanaado way qofka caafimaadku ka kala daadsan yahay dhakhtar jifa ama hawo qaadanay noloshiisa wad arki kartaa inay saatay saddeed diinteenu waxay ina bartay nabigu kaleey salaatu salaam xitaa wuxuu noo sheegay nicmo buu yiri ka weyn ma jirto caafimaadka kadib nicmada iimaanka ma ku celiyaa nicmo ka weyn ma jirto nicmada caafimaadka kadib nicmada iimaanka marka la markuu ilaahay iimaanku siiyo qof muslima ka dhigo nicmada ugu weyn ee ilaahay ku siin kara waa caafimaadka weeydaha saas yiri sadarteed qofku inuu caafimaad qaba waa wax weyn sadarteed nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu ka ducaysan jiray caafimaadka uu ducaysan jiray aroortii wuxuu oran jiray Allahumma aafini fi badani Allahumma aafini fi sam'i Allahumma aafini fi basari ilaahu ilaali sam'igayga ilaahu ilaali jirkayga ilaahu ilaali indhahayga aragayga ilaahi uu ku ducaysan jiray Allahumma aafini fi badani Allahumma aafini fi sam'i Allahumma aafini wuxuu ku sheegay nabigu kaleey salaatu salaam labada nicmood ay dadka bini'aadmigooda aan aad uga faa'iideysan inuu caafimaadku ka mid yahay caafimaadka iyo waqtiga saasuu nabigu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam caafimaadku waa wax weyn marka sadarteed waxaan idin sheegi lahaa iminka waxa jira adduunka waxa dhaca coronavirus baa socda ma maqasheen horta coronavirus maxay tahay mushkiladiisu ma caafimaadkiyo dadka ka tagaya maxaa laga baqaya waan xanuunsanaya on soo ma hadde way waxaan idin sheegaya ma idin sheega coronavirusku stock marketka adduunka wuxuu ka saaray 3 wiig gudahood wuxuu ka saaray 7 trillion dollar buu ka saaray maaha maxay billion maaha 7 trillion dollar bes ayuu ka saaray suuqa stock kaliya ku baaba'ay lamana arage meelu joogo ma naga aragnay coronavirus wuxuu baan maqlaynaa coronavirus baa jira laakiin 7 million buu ka saaray way dadku markaa imka wada baqayaan baad u maleynaysan because qof kasta wuxuu ka baqayaa caafimaadkiisii dee sadarteed caafimaadku waa nicmo farxadda isaga ugu horeeya haddaad maanta caafimaad qabto wax badan oo kaa maqan ma jirto caafimaadku waa wax weyn sadarteed dadka caafimaadka ka qaba way ka nicmo badan yihiin way ka farxad badan yihiin way ka bashaash badan yihiin dadka aan caafimaadka qabin taama isla fahanay waa nuqdada koowaad ay sheegeen Gunner Project waa la koow qaybta labaad ay sheegeen waxa weeyaan waa dad mashquul ah dadkaasi mashquul maxay ku yihiin way shaqeeyaan waqul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu war shaqeeya mushkilada muslimiinta ay tacaasadu inoo wada haysato ma taqaana waxaad aragtay magaalaan tagaya dhulkeenii kamid wallahi gobolahan soo boqdo 70% dadku ma shaqeeyaan meelaha qaar kood 175 dhalinyaradu aanay shaqo haysanin oo maxaa dhacay marka dadku markaanay shaqo haysanin de warwar iyo mashaakilaad iyo problem ba ku dhacaya sadarteed dadku markaanay mashquul ka ahayn inay ismashquulinin stressku levelkoodu high weeyaan baa la yiraahdaa kor buu kacaa haddaad aroortii shaqo tagto 7 saacadood aad soo shaqeynayso adoo daalan baad xaafadaada imanaysaa maan ahayn
waad imanaysaa deedna waad seexanaysaa waad kacaysaa noloshaada weyn naasa laakiin haddaad 7 saacadood un xaafadda saa hor fadhida adii xaajiyada yarsaas hor fadhidaan idinkaaba isnacaya dagaal baa dhacaya muuti maan ahayn cold war xaafadda gantaalo maxaa ku dhaca dhibaatada qaxootinimadu keenta waa caynka marka islaamiya odayaashiis hor fadhiisteen labadoodii dee waxa ku dhacay dagaal badanood aragteen xaafadkiisa ka taa geli mayna caawo laakiin waxaan idiin sheegayaa ilaahay subxana watacaala wuxuu inoo sheegay in la shaqeeyo bal saasuu ilaahay suuratu tawba 2 aayadood 2 inaan wax badan isu jirin wuxuu qul icmalu fasayara allahu camalakum warasuuluhu وستردون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون آيات كلنا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون إلا الشقاية سادرت dadka waxaan soo jeednaa anagu war shaqadu waa sharaf farxadna way ku keenaysaa yani fiicnayn laakiin shaqada foqol caqliga aanan waan ka soo horjeeda ee 12 saacadood ma 3 shift la gelaya oo qofka adduun daba caray taasina wax fiican maaha shaqo manageable oo qofku shaqaysto wax dadka badankooduna wadamadan jooga 3 ma shaqeeyaan de 2 shift iyo 3 shift 2 shift iyo 3 shift stress iyo problem bay ku keenaysaa war 7 saacadood oo aad soo shaqaysato lacagta heer soo shaqaysato iska bixisaa loo baahan yahay way ku caawinaysaa dadkeenu saas ahaan jireen laakiin inuu qofku meel fadhiyo oo uu waxba qabanin oo dadka qaar kood aanay luqadii baranin oo language-koodii skills-koodii wax ku foof wax qabso waxay leeyihiin waxba faa'iido in fact nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha cajiibka diintuna bartay eega wuxuu yidhi haddii ay saacadu dhacdo isagoo qofkiin wax beeraya in inta yar ha aaso hadda halkay waxaan la beero seeds baa la hadday seed gacantaada ku jirto oo ay saacadina lagugu afuufay qiyaami oo goormaad la soo bixi doontaa laakiin waxa weeyaan wuxuu sheegay nabiga calayhi salaatu wuxuu inuu qofkiin one of you guy qof of you kin aroortii inuu kalaho oo uu tago meelaha xaabada laga soo gooyo oo soo xaabaysto madaxa ku soo qaado maaragtay oo dabadeedna suuqa keeno oo iibiyo oo wuxuu soo shaqaystay oo cuno ayaa uga fiican inuu dadka baryo ama la siiyo ama loo diido soo la fahmin macnaheega marka qofka shaqay way maxaa dhacaya ani berigan wadankan nimid dad badankeenu malaha dad ila midtiin qaarkiin malaha idinko tijaarad timaadeen laakiin anagu qaxootiyaan wadanka Kanada soo galay markaan soo galayna lacag maanan wadanin waxaan tagi jirnay meelaha qaxootiga lacagta laga qaato marka meelaha ayda tagayno dignity-ga sharafta waxaan u fiirsan jirnay waxaan sameyn jirnay mararka qaar kood 3 stops baan ka degnaa baska markaan u lugaynaa meesha in lagu arko ma rabno why because ma rabno in la arko in waxa soo dawarsanayno shakhsiyadaada lumaysa waxaan u fiirsadaa caruuraha imka qaar baan baska isla soo raacna mararka qaar kood baskaan soo raaca shaqada waxaan soo agmara xaafadaha mararka qaar kood neighborhoodka dadku waxaan u fiirsadaa ciyaalka qaar baa waxay kaga degayaan 2-3 istabood bay kaga soo degayaan ma rabaan xaafadda agteeda ay kaga degaan why because waxay ka baqaynayaan neighborhood buu degan yahay wacanka sadarteed sideedaba sax ma aha qofka bini aadmiga markuu waxaysto uu iskala sareeyaa dadka kale qof nolosha shakhsiyad buu leeyahay hadduu laakiin noqdo qof baryootama shakhsiyadiisa way hoosaysaa ما هم معنى ذي أنا وحبة إنه تذكر وحويديسن إلهي بقى كأنه قف وحيسي قفان وحيسن لكن من النبي قرن قعنت السرية قعنت واسع قعنت السرافي عن قعنت السرا نقطة هاسها نقطن سأصلي نفره إنه مركا قف كل حارة نقول كصوت كلين كريم ماشوا دونها ككانوا وحنا يلا صبحوا أيا كف عنه بين آدمي وحويديستو مرنا للسيو مرنا لوديدو مركا سادر محلنا قف كي إلهي وحسي كرو شقيسو شقاق بس سادر القرآن كواحد كوارك توانو إيمان دونا من عمل صالحا قفكي wax wanaagsan qabta oo niman doona saalix tadarteed in la shaqaysto waxay keentaa bay yiraahdeen in maxaa la yiraahdaa in mashquul la noqdo oo maxaa mashquul lagu noqonayaa saan u soo koobno mashquul waxa noqonayaa shaqo wax barasho Somaha wax akhris waxaasoo dhan cilmi barasho diin barasho quraan xifdi waxaad rabtade laakiin aad mashquul noqoto aad firaaqa aanad noqon mid quraha la iska ilaaliyo inaan waqti badan social media waxa la yiraahdo aan kaaga lumin way social media maxay tahay social media iyada laftigeeda waxay keentaa xanuuno badan oo ay dadku wali daraasayn hada Facebook yaro account yaro Facebook leedahay oo cajalada yar duubto cajaladaada yar la daawan waayo waxay dhahdeen cuqdad baa kugu dhacaysa
haddii gabadheer sawirkeeda yar soo gelsan kar sawirka soo dhajo oo like no like man what happened with me buu ku leeyahay aniga problem baa haysta ana problem kuma haysta meesha nagada cidweynaanay daawan baa laga yaabaa cajaladaadii waxaa laakiin xuquuqdaday keentay midda kale waxay keentay waqti fara badan baa ka lumay dadka bini'aadmiga intay dul fadhiyaan waxaan qiyaasay beriban waan lahayn jiray account Facebook iska cancel wax kale ma cancel waqtigii baa igaga yara lumay deedna waxaan fahmay markan wax qiimeeyay waxaan arkay in wax badan oo ka wanaagsan aan sameyn karo marka waan iska xidhayba wax kalena uma xidhin waxaan arkay in waqtiga kaaga lumayo waxaad ka helaysaan islahayn mararka qaarkood laakiin aanu meehi dadka ka soo horjeeda social media da wada wax maanta la isticmaalo xumaanteeduna wanaageeda leedahay laakiin mararka qaarkood waqti badan baa kaaga lumay laakiin waanaad waxaaga wax fiican oo shaqo fiican aad ku qaybsaa haddii kale bal waxaad fiirsaa Soomaalida haddaan aniga lacag laysiin laa inaan baaro layma siinayo lacag on soo baari laa u isticmaalaan YouTube-yada iyo page-yada waxaan haddaad baari lahayd waxaa soo bixi lahaa billions hours baa nagaga baxa haddaynu dhulka xaari lahayn ama dhulka meedankeeni aman lahayn wax badan magaalooyinkeenu ka nimid eega wasakh midhan ba ka jirta haddaynu iskaa wuxuu qabsan saacadda Facebook ka baxnayn wada kaliin gareyn lahayn kuwa wadankii joogaan sheegaya kuwan maba ka hadlayo wallahi wadankooda dhan uu hagaagi lahaa hadday wax beeri lahayn hadday soo kalumaysan lahayn hadday wax samayn lahayn war qaar baa habeen iyo maalin dadka ugu badan aan waan bastidaan ku sameeyay dadka ugu badan ee isticmaala dadka gudaha jooga ka badan kuwa xaggan jooga waxa ugu badan waxa laga wada reedha waxba ma hayaan ma waxa la ummad wada faqiir oo waxba haysano hadana habeen iyo maalin wada rabteen mid kastaba $30 oo ku jiro oo maxaa la yiraahdaa oo telefoon oo muuqaal aqalka nidaamka yaalo wadankeenu ka xoog weyn yahay nidaamka maxaa la yiraahdaa systemada Canada jooga internetkooda marka qaar waxa way ka fiicantay ku weyn xagee ka keenan wada masaakiin wada dawrsanay intay baalkan dul fadhiyaan oday islaan kastaba ay waxa may tagaan suuqay shaqaystaan xaafadaha iska hormaadeen nadiifiyaan ay shaqada qabsadaan sadartii waxaan leeyahay waa in la mashquuliyo dadka laakiin mashquulku waa noqdaa mashquul ay wax wanaagi ka soo baxayaan inta ma isla waafaqnay waa tii labaad soo tii saddexaad taran tii labaad miyaban marayaaba okay ta saddexaad allahumma salli ala muhammad aan mid afraad horta tago ta afraad waxay yiraahdeen hadda eega ta afraad waxay yiraahdeen waa inuu qofku xiriir la leeyahay authority sareeya inuu ilaahay xiriir adag la leeyahay waxay yiraahdeen inuu qofku xiriir adag la leeyahay ilaahay la leeyahay iyagu waxay yiraahdeen authority sareeya inuu xiriir adag la leeyahay inuu iimaan leeyahay inuu iimaan leeyahay ta afraadna waxay yiraahdeen waan soo noqon doonaa qadiyada iimaanka goonaan uga hadlaya because aanu qof diin fidiyaanahay marka waan idin sheegi doonaa anagu saan u aragno laakiin waxay yiraahdeen Colin Carberchet number 1 waa inuu maxay caafimaad qabo number 2 inuu qof shaqeeyo yahay number 3 inuu dadka kala caawiyo bini'aadmiga caawiyo marka dadka volunteerka ku shaqeeya meelaha volunteerska dhakhtarada taga adigu waligaa dhakhtar ma tagtay sheekh dhakhtarka ma soo booqatay mardad dadka marka soo booqato anu kuma badin laakiin maalintan tago runtii waxaan ka imaadaa goor dambe because halkan qof baa jooga halkan qof baa jooga u socdo waxaan ka imaadaa laakiin aanu very satisfied aad u faraxsan hada wax xaqiiq maalinta qof xanuunsanayo soo booqdo waan ka farxad badan maalintaan soo booqanin hadana waxaan akhrisanayo casharada iyo waxaan qabanayaa aan akhrin way ka dib badantay maalintan casharadayda aan qabsado okay fahan marka waxa tarista bini'aadmiga la tara adigay faa'iido ka soo galayso oo maxaan ku bilaabay kelmadii hore inay idin sheegin dad fara badan oo maanta wacag loo lacagtoodii bini'aadmiga ugu shaqeynaya maxaa ka galay ninkii Bill Gates la yiraahdo malaariyada Afrika jooga u baadba ka kala dagaalamo oo lacagtiisu intaas oo sano shaqaysan yiraahdo waxaan ku sameynaya because wuxuu raadinayaa satisfaction oo qofkan noloshiisa wuxuu ku farxo qiimo adduunkan ku yahay saddeed in dadka loo shaqeeyo oo dadka wax loo qabto oo masaakiinta marka maanta qof wax u qabato dadkeena badankeeda waxbaynu ka rabnaa in lagu arko laakiin aad waxaad doonaysaa in noloshaadu ay ku hagaagto waxa marka in dadka wax loo qabto oo idin sheegi doonaa diintuna soo wardo ama baan iska sheegnay imika diintu waxay sheegtay hadalka qaata imikii qolooyinka research inoo sheegan Soomaa waana saxde maxaan idinku sheegay waxay bini'aadmigu aqligooda nadiifta ah ku gaaraan diinta kama hor timaado nusuusta quraankii diintana waxa la rabaa si waaqici in maanta dadka loogu gudbiyo eeg nabiga wuxuu alayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid wuxuu rasuulkii ilaahay dadka keebu ilaahay ugu jecel yahay wuxuu yiri dadka ilaahay keebu ugu jecel yahay dadkiisa ma taqaana wuxuu nabiga alayhi salaatu wasalaam mooran mid habeen iyo maalin salaatu leel tukada wuxuu ku ilaahay ugu jecel yahay waxa weeyaan ka dadka ugu anfaca badan ka dadka ka faa'iideystaan
hadda eeg kaydinku khayrka badan buu yidhi waa ka dadka u shaqeeya markaasaa wuu sii wado wuxuu yidhi hadallada cajiibka waxa weeyaan inaan masaajidkaygaa ku ictikaafo buu yidhi hadda masaajidku waa kee masaajidka madiina aan halkaa ictikaafo bil misyon 2 bilood buu ayaa waxa iga fiican inaan qof muslim ii yimaado walaalkeena xaajadiisa u soo qabto qof bini aadmiyo walaalkeena raacon wax la soo qabto dhibaat gaarigan ku qaaday dhakhtarkan geeyay waxbaan u soo waxa iga fiican tahay intaan masaajidka fadhiisto inaan ku ictikaafo nabiga kaleey salaatu wasalaam Soomaaliya rasuulku nabiga kaleey salaatu wasalaam uu sheegay marka qadiyada dadka loo shaqeeyo maxaa idin sheegay Chinese-ki waxay dhahdeen ma xuso ma ku celiya maxay dhahdeen Chinese-ku qofka hadduu rabo inuu weligii faraxsanaado maxay ha qabto dadka ha u shaqeeyay yiraahdeen Soomaha diintu maxay tiri waxay tiri qofka waxa u fiican inuu masaajidka xitaa ictikaaf waxa u dhaantay inuu bini aadmiga u soo shaqeeyo qofka inuu qurux qalbigiisa u ka faraxsiiyo ayaa ka fiican maanta qof inuu bal xitaa diintu waxayna bartay qofkii qof muslim oo dib ay haysato ka fayda qofkii dib ka kayfo qof muslina ilaahayna maanta yawmal qiyaamaha dhibaatooyinkeedu ka fayda u shaqeynta dadka ee bilaa lacagta ee dadka loo shaqeeyo si tatawuciya waa wax weyn ka warama hadeen inteena wadankeena ku nool oo qof kastaba 3 saacadood wiigi oo dhan la 2 saacadood voluntary aan sameynaya 2 saacadood kuwiina wax bartay jaamacada ka baxay yaryarka dhalinyarada haddaad oran lahaydeen 2 hours volunteer ciyaalka xaafadaha degan baan u marayna maadka u dhigayna oo ka maxay dhakhtarka dadka geyn kare oran lahaydna mariya dhakhtarkan idin ka xaynaya bal dadkeena oo tawo jooga hadii qof kastaba 3 hours volunteer isku qori la ka waran maxaa soo bixi isbedel baa ku dhulkeena jooga ka waran hadii qof kastaba oran lahaa waxaan sameynaya voluntary baan sameynaya maxaa dhici lahaa society-ga dhan isbedeli lahaa laakiin markuu qof kastaba anaani noqdo qof kastaba me aniga I don't care others maxaa iga kale aniga dadka kale waan shaqaystaa ma labada weekinkayga waan raaxaysanay ani maxaa dadka igu jiro waxba u qaban maayo qof kastaba aad naftaada ka fikirto wax laga yaabaa waxaad ka fikirto xitaa adiga laftigaaga internally gudahaaga inaanad nolol fiican aanad lahayn soo wax ma aha diintuna saasay na bartay taafraad waan idin sheegay waxa weyn qofku ilaahay ku xidhnaado waana insha Allah qaybta ugu dambeysay kelmadeena insha Allah si gooniyan iyadana u eegi doona qaybta laakiin afartaan noqdo maanta la taga kow waaniga sheegay markaan idin sheegay number 1 waxa weeyaan inuu qofku maxay u caafimaadka talabaad inuu qofku mashquul noqdo oo naftiisa ku mashquulo shaqadiisa tacliintiisa waxbarashadiisa iskuulkiisa isku mashquuliyo wax akhriskiisa tasaddexaad waxa inuu bini aadmiga wax taro oo shaqeeyo Soomaha oo caawiyo voluntary lu ku shaqeeyo taafraadna waxa weeyaan beenid waxa weeyaan inuu qofku ku xidhnaado bay dhahdeen awood xoog loo sareysa oo awood waa inuu qofku ahlu diineed noqdo iyagu diinteena ku taaseen ku kala tageena dadka laakiin inuu leeyahay awood saro daawanaysa dadka diinta ku xidhan diintay doonaan ku xidhnaadaan way ka farxad badan yihiin bay dhahdaan kuwa bilaa diinta dadka ugu liitana waxa waa dadka atheist-ka agnostic problemka haysta waxa weeyaan dhibaatadu wuxuu haystaa waxaanay garanayn nicmooyinkan fara badan ay haystaan xagee bay ka keenteen garan maayo waa atheist marka warwarkiisa badan laakiin qofka diinta leh marka la weydiiyo Siciido yaa ku abuuray ilaahay cirka yaa abuuray ilaahay dhulka yaa abuuray ilaahay aniga yaa abuuray ilaahay aakhiran tegaya markan dhito xagee oo su'aalihi waaweynaa waan ka jawaabay laakiin markaan dhasoo yaa ku abuuray oo maanta oo dhan igu muuqatay yaa ku abuuray ana waalanaya saadar bay dhahan dadka xagga waxay ku xidhan yihiin awood saro awoodda ilaahay waa tasad afraad marka qadiyada afraad insha Allah si gooniyan khudba jaamaca ugu eegi doona cajalada kala hadii soo socota wallahu subhanahu wa ta'ala wa sallallahu